that the position of the elected president has a tremendous capacity to do good for all Singaporeans and for Singapore. muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaynu dul istaagi doonaa sheekada guusha Xaliimo Yacquub inagoon ogaan doona halka ay hayaanka ka soo bilowday iyo meesha ay gaartayba. magaciigu Cabdiraxmaan Maxamed, halkanina waa Faatix Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Xaliimo Yacquub waxay ku dhalatay guriga qoyskeeda oo ku yaalay meel u dhow wadada Queens ee Singapore. Xaliima waxay dhalatay 23 Agost 1954. waxay wax ku bartay iskuulka gabdhaha Shiinaha ee Singapore ka hor inta aysan aadin jaamacadda Singapore, halkaas oo ay ka heshay shahaadada koowaad jaamacadda sharciyada 1978 ilaa 1981. 2001 waxay ku dhamaysatay Master of Laws ee jaamacadda qaranka Singapore, waxayna jaamacadda siisay dhakhtar sharafeed sharciyeed 7 Luulyo 2016. waa haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda dalka Singapore madaxweyne ka noqota. Xaliima ayaa si rasmi ah loogu aqoonsaday inay tahay Muslim Hindi ah maadaama aabaheed uu asal ahaan ka soo jeeday. Xaliima aabaheed waxa uu ahaa waalidii u dhintay wadne xanuun markii ay 8 jir ahayd, isaga oo ka tagay iyada iyo 4 walaalo ah oo ay korisay hooyadeed. qoyskeedu waxay ku sugnaayeen faqri waqtiga dhimashada aabaheed, waxayna ka caawisay hooyadeed inay wax ku iibiso meel ka baxsan Singapore. Xaliima waxa ay sarkaal sharci ka soo noqotay National Trade Union Congress, waxaanay noqotay agaasimaha waaxdeeda adeegyada sharciga 1992. waxaa loo magacaabay maamule macadka Singapore ee daraasadaha shaqada sanadkii 1999. Xaliima waxay guursatay Maxamed Cabdullaahi Al-Xabashi, waxayna leedahay 5 caruur ah. madaxtinimadeedii ka hor waxay xubin baarlamaan u matalaysay xisbiga Juroonka GRC laga bilaabo 2001 ilaa 2015 iyo xisbiga Marsiling GRC laga bilaabo 2015 ilaa 2017. xubin hore ka tirsan xisbiga Action People's Action Party oo loo soo gaabiyay BAP way iska dhiibtay xilkaasi oo waxay noqotay qof madax banaan oo rabta inay u tartanto madaxtinimada Singapore 2017. waxay sidoo kale soo noqotay gudoomiyihii 9aad ee baarlamaanka Singapore sanadihii 2013 ilaa 2017. Xaliima waxaa loo dhaariyay maalintii xigtay oo ahayd 14 Sebtembar 2017 inay noqoto madaxweynihii labaad ee Muslim ah tan iyo Yuusuf Isaaq 1965. martiqaadkii Willem Alexander ee Netherlands. Xaliima waxay ahayd madaxii ugu horeeyay ee Singapore ah oo booqda Netherlands tan iyo markii la aasaasay xiriirka labada dal ee 7 Diseembar 1965. booqashadu waxay dhacday intii u dhaxaysay 20 ilaa 24 November 2018. bishii Sebtembar 2019 Xaliima waxay kormeertay saxiixyada 8 heshiisyo oo ay la gashay Philippines, taasoo u ogolaanaysa shirkadaha Singapore iyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahba inay balaariyaan dhinacyada ilaalinta xogta, sayniska iyo tiknoolajiyadda iyo tababarada xirfadaha iyo horumarinta ilaha aadanaha. kadib markii loo dhaariyay madaxtinimada waxaa la ogaaday inay tahay madaxweynihii ugu horeeyay ee degan guri caadi ah. Xaliima waxay hore u sheegtay in aanay ka guureyn gurigeeda inta ay xilka hayso. 2 Oktoobar 2017 si kastaba ha ahaatee wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku dhawaaqday inay ka guureyso aqalka dadweynaha sababo amni oo khatar ah oo imaan kara awgeed. ayuu hay'adda ammaanku u aqoonsaday inay tahay meel khatar ah. intaasi ayaynu ku soo gabagabeynayna daawadayaal muuqaalkeena maanta. fadlan haddii uu ku qanciyay muuqaalku ha ilaawin inaad like saarto kuna soo biirto kanaalka haddii aadan weli ku soo biirin lana soco muuqaaladii u dambeeyay.